mudane wasiir waxaad ku soo dhawaataan inaad noo dhagax dhigtaan maanta dayrkii jaamacadda Camuud oo saynu hore u sheegnay ilaa 6400 oo mitir maanta la dhagax dhigayo oo aynu dhismihiisa bilaabayno waa maalin kale oo taariikhi ah oo ay jaamacadda Camuud tallaabo hore u qaaday waxana ay markan ku suntanayd dhagax dhiga barbilowga mashruuca kaabayaasha horumarinta jaamacadda Camuud oo noqonaya mashruucii ugu ballaadhnaa ee tan iyo Ingiriiskii lagu horumarinayo jaamacadda Camuud waxana goobjoog ka ahaa barbilowgan wasiirro ka tirsan xukuumadda maamulka degmada mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud iyo dhammaan shaqaalaweynaha jaamacadda Camuud oo iyagu maanta si ku dayasho mudan u bixiyay qaaraanadii lacageed ee ugu horeeyay ee mashruucan lagu bilaabayo gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo madashaas ugu horeyntii shaqaalaweynaha jaamacadda Camuud u jeediyay khudbadiisii ugu horeysay ayaa kaga hadlay qorshayaasha maamulka jaamacadda ee dhinacyada waxbarashada kaabayaasha waxbarashada maamulka iyo macallimiinta ardayda cilmi baarista iyo arrimo kale waxana uu si gaar ah isku dul taagay barnaamijka kaabayaasha horumarinta jaamacadda Camuud iyo waxa uga qorshaysan waxana uu yiri waxaynu halkan kaga dhawaaqaynaa guddida horumarinta kaabayaasha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed gudoomiye 2 Professor Maxamed Maxamuud Jaamac Deeriye gudoomiye xigeen 3 Dr. Saciid Axmed Walhad 4 Mr. Abdisamad Ciga Habane Secretary 5 Mr. Abdullah Ali Yusuf xagga miidiyaha 6 Engineer Abdikariin Idris Noor حق إنجنيرينج إسقى يتيم كيسة تضبع مستر عبد الرشيد عبد الله جامع حسابية جدي ده سواحي نقوليسا جدي ده لو وريجي دونتا هارون مارينتا كابياشا جامعة عمود وام هاي كابياشا سمركا وكون هالكن إيجا يدقالها كوبه دونابا هدي له هاي كو دير كجامعة إن كبدن ليه كن أمتر أيا بس دونا هدي له هاي مو oo aynu maanta dhagax dhigi doonaa waxaan isku dayaynaa 6000 mitir 400 ee wajahada iyo geedka laga soo galayo innaga iyo ardaydeena isku duuban inaynu dhisno waxa ku bixi doona dayrka marka hore lacag $600,000 hoy ardayda loo dhiso ama dormitories waxa la yiraahdo oo ay ku bixi doonto 1,450,000 shay baadiyo ay ku bixi doonaan 220,000 hoolka qalin jabinta oo ku bixi doono $230,000 masjidka waxaynu u baahanahay masjid weyn oo qaadi kara markiiba 2,000 ugu yaraan 2,000 qof waxana ku bixi doona $500,000 hadii ilaahay qadaro sports facilities waxa ku bixi doona 230,000 tirada guud ee lacagta waa 3 milyan 230,000 dollar meelaha laga helayana Professor Suleymaan baa faahfaahin doona hadii ilaahay Chancellor-ka jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa iftiimiyay baaxadda mashruucan iyo cidda loo baahan yahay inay gacan ka geysato waxana uu yiri horta waxa la wixii ka baxay jaamacadda isku Camuud ka baxay iskuuladeedii kuwii hore intermediate-ka ahaa secondary school-ka iyo jaamacadda Camuud intay joogaan meel walba ay joogaan waan ka codsanaynaa inay contribution soo sameeyaan waana cudud ay isku haleynayno ma laha anagu meel kasta ay joogaan adduunka wada Camuud ba ka baxeen 2 waa qurba joogga waa isku haleynayna kama mamnuuc ma aha qurba joogga kale ma aha reer dalka ma xisaabtamayno waxa kale oo ku jira shirkadaha iyo ganacsatada kuwa aynu xiriireenayo kuwa kalaba marka shirkadana waxaan jecelahay ganacsatada kuwa boorama iyo kuwa dalka iyo kuwa dibadda iyo wadanada dariska inay ku darsadaan brandka cusub ee Camuud University inay ku darsadaan dawladaha kuwa dariska nahay dawladda dhexe ee Soomaaliland iyo dawladaha hoose waan ka rabnaa iyagana shakhsiyaadka iyaguna maalqabeennada wax la baxaya waa ka doonaynaa international community-gana waan la xiriiri doonaa biidnillah marka waxaan aad iyo aad idinku hambalyeeynaa idinkana mahad celinaynaa oo sharaf weyn inoo ah in Camuud waxay dhisanaysa iyadoo ay bilowday maanta intii kalena baaqaan u diraynaa aan leedahay nala dhisa hawsha
gudoomiyaha boodhka jaamacadda Camuud Xaaji Axmed Miisaan Aare ganacsato iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorama mudane Yaasiin Daheeye oo mane oo hadalka iska daba qaatay iyaguna tilmaamay halkay maanta joogtana waxa weeyaan in lagu mahadnaqo ilaahay baa mahad ugu mahadnaqnaa anigu de wax kale ugu hagaag waa ducaynaynaa ilaahay ha inoo barakeeyo hawshaan maanta ku dhaqaaqnay aan iyo tii haruuhan u doonay Allah inoo taameelo anigoo ku hadlaya afkii ganacsatada gobolka Awdal waxaan rajaynaynaa inaan hawsha wixii nagaga aadan aan ka qaadan doono insha Allah sidana walba uga qaadan jiray waxa weeyaan waa guul badbaadinaysa boqolaalka sano ee soo socda generationada inaga dambeeya wixii ay naga dhaxli lahaayeen waxa weeyaan waxaan leeyahay kulley hawl badan bay noo taala in waxa la inaga rabaa ka qayb qaadano dhiskaygaana dadkan waxaan ku baraarujinaynaa cid walba jaamacaddani waa jaamacaddii dalkan marka la yiraahdo Soomaaliland ugu weyneed ugu horeysay macallinka ahayd marka maadaama jaamacad national tahay kulley wax qabadkeedana waxaan filaynaa in si national looga qayb qaato wixii intaasi ka dambeeyay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Saciid Habane Obsiye oo isaguna halkaas ka hadlay uu yidhi haddii aan nahay alumnayga jaamacadda Camuud waxaan diyaar u nahay inaan muruq iyo maal iyo maskax intii naga aadan la garab joogsano oo ka qayb qaadano haddii aan la idhaahdo barnaamijkaas campus life-ku waa waxa ardayga macnaha uu sameeya ee uu u baahan yahay barnaamijyada faraha badan ee imika la tilmaamayna ee uu deyrku u horeeyo ay dormitoryga iyo meelaha ardaydu ku noolaadaan ay ku xigaan waa wax horumar weyn jaamacadda ku soo kordhin doona halkay maanta taagan tahay magaceeduna wax fara badan kor ugu sii qaadi doona dhankiisa ayaa isaguna wasiirka wasaaradda maalgashiga mudane Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare oo hadalka qaatay waxaana wasta ka xariiqay dhagax dhiga deyrkii iyo dhulkii jaamacaddu ay lahayd in la dhagax dhigo maanta oo hore loo asteeyay runtii laakiin deyrkii iyo bilowgiisii iyaduna waxa weeye waa farxad aad iyo aad u weyn professor Saleeman chancellorka jaamacaddu de fariin uu diray alumnayda la tirsanayaan kamid ahay jaamacadda Camuudeed waxaan doonayaa inaan magaranaysaa de annaga iyo ragga kale ee la midka ah ee jaamacadda ka baxeen madaxda ee shaqada mushtariga leh meel walba jooga dunida inay diyaar garoobaan umaan u diray fariinta runtii ugu dambeyn ayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane Maxamuud Xasan Saacad Saaji oo barbilowga mashruuca kaabayaasha horumarinta jaamacadda Camuud dhagax dhigayay uu isaguna yidhi dhagax la dhigo waa dhagax u qiimo badan jaamacadda Camuud waxa weeyaan intii ay soo jirtay oo dhowr iyo 20 sano ah intay ballaaratay wad ogtihiin looguma talagelin muddo gaaban muddo dheer baa lagu talagalay waxaan u malaynayaa waxa weyn way ku nasiib badan tahay dhulka inuu waliba uga batay laakiin dhulka maanta ay qabatay jaamacaddu raggii ku dadaalay aad bay u mahadsan yihiin waxa weeyaan horumarka Awdal qayb weyn oo kaalin weyn bay ka jirtaa Camuud la'aan waxa weeyaan Boorama inta ay tahay ma haatee sababtoo ah waxa weeyaan Camuud waxay soo jiidatay dad fara badan oo aanan Awdal oo kaliya haatahay oo dhaqaale soo geliyay